qaybta labaad ee taariikhda kooban ee Soomaaliya waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalkii dhacay 1977 ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya. dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed waxa uu ahaa dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasoo ujeedada dagaalku u bilaabmay ay ahayd khilaaf ka taagan gobolada Soomaalida ee Itoobiya ama Ogaadeniya ee Soomaalidu u taqaan Soomaali galbeed, kadib markii ay fashilmeen dhammaan wada hadaladii siyaasadeed ee ku saabsanaa arrinta gobolka Ogaadeniya ayaa ciidamada Soomaaliya waxa ay weerar ku qaadeen wadanka Itoobiya. toddobaadkii ugu horeeyay waxa ciidamada Soomaaliya u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan bartamaha iyo koonfurta gobolka Soomaali galbeed. intii dagaalku socday waxa ay ciidamada Soomaaliya marba marka ka dambeysay ka soo hoynayeen guulo aad u ballaaran. waxa ay ciidamada Soomaaliya daba socdeen oo dabada kaga jireen ciidamada Itoobiya ilaa ay la gaareen goobta loo yaqaan Siidhamo. markii la gaaray Sebtembar sanadkii 1977 ciidamada Soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan gobolka Soomaali galbeed. waxa kale oo ay qabsadeen goobo iyo magaalooyin muhiim ah oo ka baxsan gobolka Soomaali galbeed. kadib markii ciidamada Soomaaliya ay go'doon galiyeen magaalada Harar, waxa dagaalka soo galay oo Itoobiya isa soo garab taagay wadankii la oran jiray Midowgii Sofiyeeti. Midowgii Sofiyeeti waxa uu taakula dhan walba ah siiyay ciidamada iyo dawladda Itoobiya. waxa kale oo Sofiyeetku ugu deeqay Itoobiya in ka badan 18,000 oo askari oo ka yimi wadanka Kuuba, taasoo keentay in ciidamada Soomaaliya dib loo soo jabiyo laguna qasbo inay ka baxaan gobolka Ogaadeniya. ciidankii xoogga dalka Soomaaliya waxa uu ahaa 35,000 oo askari, 23 guuto oo infantry ah, 9 guuto oo taangiyada ah iyo 9 guuto oo madaafiic ah, 4 guuto oo ciidamada cirka ah. ciidamada cirka Soomaaliya guud ahaan diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 diyaaradood. 24 ka mid ah waxay ahaayeen nooca loo yaqaan MiG-21S. waxyaalaha saaciiday Soomaaliya waxa ka mid ah inay ciidamadu aad iyo aad ay u akhlaaq fiicnaayeen iyo tababarkooda oo aad u sareeyay, sidoo kale moraalkooda oo aad u sareeyay. qalab ku filan ayay haysteen. ciidankii xoogga dalku waxa uu aad uga dhisnaa dhinaca guutooyinka madaafiicda. madaafiicduna waxay ahayd hubka ugu muhiimsan ee ay wax ku weeraraan. quwadaha kale ee Soomaaliya waxa ka mid ahaa ciidamadii commandoska ahaa ee brigade-ka, kuwaasoo loo tababaray qaab ayna cidna hor istaagi karin meelaha ay daciifka ka ahaayeen Soomaaliya. ciidamada Soomaalidu aad ayay uga yaraayeen ciidamada isbahaysiga ka soo horjeeday. halka askari ee Soomaaliga waxa uu ku soo beegmayay 13 askari oo Xabashi ah. Midowgii Sofiyeeti oo muddo dheer xulafo la ahaa Soomaaliya soona tababaray ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisheenaba, markan uu naga soo horjeestay wuxuuna yaqaanay dhammaan xeeladaha dagaal iyo meelaha aynu ka jilicsannahay. sidoo kale waxaa dhib ahaa hagaajinta iyo isbeer u helidda hubka iyo qalabka Soomaalidu wadatay, maadaama ruushkii sameeyay aynu ishayno qoriga rasaastiisa goodo iyo wixii xumaada halkaas ayaa lagaga tegayay, loomana heleen wax lagu hagaajiyo. dagaalkan Soomaaliya cid kula socotay ama gaashaanbuur la ahayd ma jirin. Mareykanka oo aynu markaas islahayn xulafo ka dhigtana madaxweynahoodii xilligaas ayaa diiday oo yidhi waxayna la tahay inayna Soomaaliya xaq u lahayn inay weerarto Itoobiya. dawladihii kale ee jeclaa inay Soomaaliya garab istaagaan waxay ka cabsadeen Mareykanka ama Ruushka, sidaas daraaddeed waxa ay go'aansadeen in ay iska aamusaan. saraakiishii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Siyaad Barre, abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Cumar Xaaji Masaale, xeeladaha iyo qorsheynta ciidanka Generaal Maxamed Cali Samatar, taliyaha ciidamada cirka Generaal Cali Matan Xaashi. dawladihii ka qayb galay Midowgii Sofiyeeti waxaa ka mid ahaa Kuuba iyo Manta Koonfureed. dhimashada labada dhinac soo gaadhay waxa Itoobiya laga dilay 17,000 oo askari, waxaana laga dhaawacay 25,000 oo askari, waxaana maxbuus ahaan looga qabtay dagaalkaasi in ka badan 6,000 oo maxbuus. guud ahaan ku dhawaad 50,000 oo ciidan ayaa noqday wax la dilay iyo wax maxbuus ahaan loo kaxaystay. dhinaca kale xagga ciidanka Soomaaliya waxaa ka geeriyooday 5,000 oo ciidan, waxaana lagu dhaawacay 2,400. maxbuus ahaanna waxaa loo qaatay tiro aad uga yar kan Xabashida, waxaana lagu qiyaasaa wax ka yar 200 oo askari. dhinaca kale gaashaanbuurta Itoobiya la soo saftay waxaa laga dilay 100 askari. dalka Kuuba waxaa laga dilay 400 oo askari, Manta Koonfureedna 106 askari. Midowgii Sofiyeeti oo gurmad ahaana waxaa laga dilay 35 askari.